بسم الله الرحمن الرحيم وبشي أغسطس أيان maalintii labaad 2022 iyo channelkii aqoon wadaag ku lahayn barta YouTube-ka maanta waxaan doonayay si shakhsi ahaaneeda oo kooban inaan u soo bandhigo arrin aan ka dareemay meelaha markaan ku sheekeynayo amba meelahaas markaan fadhiyo amba dadka Soomaalida markaan dhex joogo aan ka dareemay inaan aad beenta ay u badan tahay waxaan doonayay inaan naga tusano bal halkay diintu ka taagan tahay iyo ilaahay dhinacu ka taagan yahay wadaad ma yihi laakiin wadaadadaan u dayn doonaa wixii de wadaadada kuwaan beenta sheegay ayaan u dayn doonaa wixii tafaasiila laakiin inta kooban ila arka beenta halkay taagan tahay iyo inakuna bal yar qiimeeya Soomaalinimada iyo beenta halkay kala joogaan waxaan kusoo bilaabay insha Allah waxaan tusi doonaa aayad quraana beenta ilaahay halku ka taagan yahay waxaan tusi doonaana laba qof oo mid weyn yahay midna uu yar yahay laba waa rag de dharkii xidhanna dee dadka ay Soomaalidu ku qadariyaan la yidhaahdo waa wadaad laakiin ku caddahay beentu caadi beentu ugu caddahay quraankuna uu ku sheegay dad aanad ilaahay una u yar tahay inuu daafkoodu yaan tusi doonaa insha Allah bilaa kariim inakuna markaa dee waxay soo bandhigo fikirkiina waad ka dhiiban kartiin aragtidiina waad ka dhiiban kartiin laakiin anu saan u arkay ayaan igu soo jeedin insha Allah bilaa kariim horena waxaan waan u arkay laakiin maantay igu qasabtay inaan kusoo video ahaan kusoo duubo insha Allah bilaa kariim waatan aayadda quraanka horta إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار aayaddaasi sidaan ka maqlayo in allaha ilaahay laa yahdi ma hanuuniyo kuma rido waddada hagaagsan janna hadalkeeda iska daa laakiin waxaa iskaba dhaafay ilaahay maba hanuuniyaba yahdi man huwa ku caddaatay kadaabu beenaale kaafir ilaahayna ana rumayn qofka hadduu beenaale yahay aayadda quraanka ilaahay baba ku sheegaba kitaabkiisa inuu ka dheer tahayba ina la hadeeyo annagoo aayaddaa ka dhaqaaqayna bal ila daawada hore sanado horaan arkay laakiin maanta igu dheertay inaan videogan aan soo duubo insha Allah bilaa kariim wixii anigu reference ahaynana YouTube-ka description-ka ayaan soo dhigi doona insha Allah bilaa kariim reference-ada imika soo dhigi doona insha Allah bilaa kariim laakiin clip-ka ugu horeeya ila daawada horaad u aragteen laakiin bal haddana dib hayni xasuusiyo insha Allah bilaa kariim Zealand tagay Auckland magaalada la yiraahdo oo dabayaaqadii 98kii ahayd iyo maalin aan London tagay oo 2 yahay labada maalmood bay ugu naxdin badnaa London markaan tagay 700 oo gabdhood oo 14 ilaa 19 years u dhaxeeya wadaadka wuxuu leeyahay wiilka ninkaasi wuxuu leeyahay kufida xidhanaadu ninkaasi wuxuu leeyahay 2003 YouTube-kan horaa loogu sameeyay waxaan maleeyaa inaan London joogin oo ka sameeyay laakiin dib bayna xusuunaya 2003 wuxuu yiri maraan London tagay isagu maruu London tagay 700 gabdhood oo u dhaxaysa 14 ilaa 19 mise 18 wuxuu bal yar dhigis oo meel ku xareysan oo dhammaan 19 years u dhaxeeya oo meelood oo 14 ilaa 19 tagay 700 laba maalmood bay ugu naxdin badnaa London markaan tagay 700 oo gabdhood oo 14 ilaa 19 years u dhaxeeya oo meel ku xareysan oo dhammaan afarta xaraf qabaan u tagay
وصومالي أفرد حرف مطعم wuxuu leeyahay 700 oo kabdhood London isagu waa marti London wuxuu ku yimid 2003 marti ahaan ku yimid tourism qof Soomaaliya boorsidiisii wata kulli dad ku soo degay wuu yimid ninkaasi wuxuu yiri 700 oo 14 jir ilaa 19 jir oo gabdhood oo Soomaaliya wiil kuma jiro horta halka uu takooraya nacam ujeedadu waxa weeye nacam gabdhihii waa gabdho oo meel ku jira haye فوليكاس صدح يكب الله أفر نوكو دمالا HIV مركو دلع محلي لنا بلاس كدر مالا إمسا حرف غطونا إمسا لا يتوي أفر واحد أفر تحرف كاسر وجهنا تضرب وفوتين إلى 90 years ودحي وحرون كاودا قبا أوكلانا waxaan ku arkay wuxuu yiri waxaan u tagay 700 oo gabdhood oo wiil ku jiro odayaal ku jiro islaam ku jiro oo cudurka AIDS qaba ayaan ugu tagay maxaan ku tilmaamaa wuxuu anaku wali ma maqal ko hooyooyinkii dhalay iyo waalidadii dhalay gabdhahaasi aan wiil ku jirin may maqal dawladda lagama maqal jaraa'idada lama maqal wadaadada adigu dadkan diriiska xidhan anaku wadaadda nidhaahno oo ingiriiska nala degan lagama maqal isagii oo boorasa sita 2003 yaa noo yimid dawladdu waxay tustay 700 oo gabdhooda meel ku wada jira oo gabdhood ma jiraan barta 700 Soomaaliya Hollandan oo inta da'daasuna ma jirto afun ma hebal horta waxa la eegay waxa la weydiiyay inan baa weydiiyay Naasir Xasan la yiraahdo hay'adda amba waaxda ingiriiska caafimaadka ingiriiska sharci baa jira waxa la freedom of information wax kaste oo macluumaad wadanka lagu hayo qof kaste wuxuu leeyahay xaq amba wadanka sharciga ku jooga amba uu ku joogin uu dalban karaa inuu ogaado marka inakaas wuxuu weydiiyay 3 shay 700 oo cudurka oo gabdhood may jiraan oo wadanku hayo 2003 may jirta waxa lagu soo jawaabay warqadaasi waxa lagu soo jawaabay Soomaali baad sheegaysaa ingiriiska oo dhan ma jiraba dhakhtar 700 oo sirrada amba 700 qof haya oo cudurka HIV haya ma jiraba gaal iyo muslim iyo shaydaan iyo insi waxad 60 milyan degan inta milyan degan ma bahaynaba adna Soomaaliya kalasa Soomaali wala gabdha yar yara waa beentiyo oo cad YouTube-ka waxaan soo dhigi doonaa description-ka ina kaasi weydiiyay la khayra ka siiyo jawaabtuna waa taasi ma jirto ninkaasi waxa ku cad inuu caadi waliba sidoo ugu jeesay u qoslayo waxa dhan arko waa bixi lahayo waa murugoon lahayo magaalo dhan baa gaarsiin lahayo wadaadada Soomaalidan gaarsiin lahayo hooyooyinkii dadka dhan baa gaarsiin maya dib uu noqdo Afrika iyo dad ku haroosanaya warkaasi nin meel dheer ka yimid magaalo tiraahda been qurux badana oo ka dhigay waxay inuu tusaysaa kitaabka quraanka inii sheegay inuu ilaahayna qofku been sheega inuu ilaahay inuu hadin waxa weeyaan waa arrin cad sal iyo raad lahayn ninkaasi weli kamayno maqal raalli ahaasho oo Soomaalidaasi anaku Soomaalida ingiriiska dagabaanahay oo beenta naga sheegay gabdhahayada oo beenta uu ka sheegay gabdhaha dalnay oo beenta ka sheegay raalli ahaasho mu weydiisan ilaahayna kamu adoon inuu ilaahay ka weydiistay ta ilaahay isaga u taala ilaahay uu ka saamixi karaa laakiin ilaahay kama saamaxo dambiga dadka gashi ilaa ay dadka saamaxaan
ninkaasi muu soo bandhigin lagamana hayo wixii ku sababay inuu beentaa sheego waana ka sugaynaa mana daynayno hadday dadka dharkan xidhan oo kale nala degan ingiriiska hadday iyagu ay ka dhidhi waayeen amba ay ka sheegi waayeen amba masaajidda ka sheegi waayeen ninkaasi been buu sheegay oran waayeen ambas wuxuu sheegay war aan sal iyo raad lahayn uu jimcooyinkooda ka sheegi waayeen iyaguna insha allah billah kariim gabdhahayada iyo dumarkeedu aakhiro waan u haysanaa kumana saamaxayno wadaadada soomaalida halkan joogta adug dadka dharkan xidhan inay ka dhidhiyaan bahayna inay dadka runta ay ku hanuuniyaan bahay laakiin kamay waa sanadooyin badan waxay ka aamuseen ay weli ka aamusan yihiin iyaguna waxa qofka hadduu ka aamusay wuu la qaatay wuuna kula jiraa dembigaasi ninkaasi halkaasaan kaga baxaya dharkaa xidhay shaksiyan ma aqaano laakiin waa dembi oo naga galay waa inuu nooga raali geliyo waana soo dhigi doonaa warqadaasi ingiriisku hay-adda caafimaadku ay soo bandhigtay ta kale waxaan haddana ina tusi doonaa waa sanado hore ahayd kliibkaasi sanado cusub ku ka dhalin yar oo isagoon dharkaa xidhan isaguna wuxuu akhrinayo yaa inii sheegi doona bal ina tusi doona insha allah bilakrim boqolkiiba 23 ka baxayay 2014 way ku celiyeen 2017 kii bay ku bilaabeen waxaa ka baxay boqolkiiba 24 yani waxaan u jeednaa hadday magaaladan 10,000 ay degan yihiin waa rubuc baa baxaya sanad walba waxaa ka baxa diinta boqolkiiba 24%. waa musiiba waxa ugu horeysa waa Iran taydii sheegay waxa ku xigay Pakistan Afghanistaniinta Soomaalida caruurtana waxa ka guuxaya shaki wiilka isagoon dharkii kale xidhan wuxuu leeyahay macluumaad muu soo bandhigay wuxuu ku leeyahay macluumaad Google ku jirta buu ku leeyahay Soomaalida afartii qofba sanad kaste qof baa diin ka baxa marka waxay ka dhigan tahay malaha afartii sanoba afartii qofba saddex baa ka baxay diinta waa Yurubta dadka degan wadankan waxaan deganahay Ingiriiska 20 sano iyo wax ka badan weli way ugu yartay qof diinta ka baxay magaalada Birmingham baa deganahay dadka walwalan ee Soomaalida Birmingham la degan ee xanuunsan dariiqa meerista quraanka ay akhriyaan oo miskiidka bari soo gal miskiidka nigula tukadaan weli qof diin ka baxay marag taasi waa aragtidii oran kartiin oo way iga maqan tahay malaha nus idil oo Soomaaliyo wadanka la degan oo gaala oo kaniisadaha gala way iga maqan bal laakiin haddana macluumaadka internetka uu sheego bal han eegno insha Allah billah kariim isla eegno waxa jirta urur ay leeyihiin Ingiriisku dadka diinta ka baxay ex-Muslim Council of ex-Muslims of Britain waxay leeyihiin sanadkiiba muslimiinta oo dhan waa 2 milyan adu 4 milyan muslimiinta Soomaaliya 350 baa ya ka baxay diinta oo de ona Soomaali ahayna nooc kastaba wixii muslimiina 305 baa naga baxay marka haddaan percentage-ka aan sheegno 1 milyan haddaan 1 milyan 350 ka baxaan waxa uu baxay percentage inta dhahdo 0.0 waxa weyn waa eber 3% waxa weyn marka waxay ka dhigan tahay kunkii qofbaba waxaa ka baxay 3 may 10,000 qofbaba waxaa ka baxay 3 qof baa ka baxay diinta ninkana wuxuu leeyahay Soomaalida wuxuu sheegay Iran-ta Afghanistan-ta Soomaalida afartii qofbaba sanad kasta qof baa diinta ka baxa marka afartii aan Birmingham isla deganayn 4 sano horteed mid baa diintii ka baxay sanadkii ku xigay haddana mid kale diintii ka baxay sanadkii ku xigay haddana mid kale diintii ka baxay war wixii Ingiriiska isla deganoo dhan
goorma diinta ka baxeen ma baxeen baba aan qof diin ka baxay weli ma arag ninkaasi markaasi wuxuu u warramayaa masaakiin joogta turkiga iyuga warramayaa arrin aanan sal iyo raad lahayn oonan meelba ku caddayn caqligana u gelin ayna jirin iyuga warramaya waana been uu ka galay annaka naga galay diin kamaynu bixin annakaynu been naga ninka ilaa iyo annaka uu gabdho dumar kii hore wuxuu badee dembi ka galay iyo aflagaada ka galay been ka sheegay gabdho yar buu ka sheegay oo cawrada iyuu ka sheegay kani annaka oo dhan oday islaan wiil gabadh umuba aabayir intoo dhanba diinta ka baxeen iyuu nagu tilmaamay ninkaasina waa inuu annaka naga raali geliye weeyaan wayna ahayn dee waxba uma haysano laakiin ilaahay aakhiro waan ku haysanaa beentaasi ilaahaynana waan ma beenayo hadalkiisa qofku hadduu been sheego una sal iyo raad lahayn uu beenaala yahay ilaahay ma hadeeyo marka waa kuwa caddeymihii hoosta aan iisoo dhigi doonaa bas waxaan nagu baraarujinaya soomaalida war hadday dadkii dhar ka xidhnaayeen ana xirfad kale lahayn ma garanay dee maaha dad dakhtare maaha macallimiin maaha injineero maaha dad aqala dhisa maaha dukaano haysta maaha xirfado kale ma laho xirfaddii ahayd inuu qofkii dadka uu diinta kitaabka qur-aanka iyo daliil uu ku hanuuniyo dadkii aanu haysanay nin iyo weyn kii weynaa iyo kii yaraa hadday sidan been u sheegayaan bulshadii soomaalida waxaan u maleeyaa inaan aad beenta aan aad ugu dheerayno waxaan rajaynaynaa qof kasta oo soomaaliya qof kasta la sheekaysanaya inuu ka aqbalin inuu beenta ka dhegaysto aniga imika sanadada ugu dambeysa waxay iga noqotay caado iga noqotay qofka haddaan la sheekaysanay hadduu wax ii sheego waa inay sal iyo raad lahaadaan uu daliil ii sheego haddii kale beenaale yaanu qaataa waana u sheegaan qofka aniga aan la sheekaysanin hadduuna wuxuu iga warramay haddayna sal iyo raad lahayn uu beenaale yahay saasaan kaga baxaya insha allah wabillahi tawfiiq iyo is arag dambe